nin odayaa yidhi oday dariskayga oo 70 jir ah oo waligii salaad aan soo galin oo khamrigana aan habeen iyo maalin u kala saarin ayaa ila darisay hadduu igu kiin hadduu arkaano inila socdana dhibba ay qabsane waa oday dhib badane aqalkiisa sheedan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga waaya wixii dhibaatay in soo gaadhana inka isgaarsiiyay marxaba albaabkii bay garaacay waa shantii galabnimo sabab hurdo ka soo kacay qorradii khamriguna miiska u dul taalo islaan male ilma male waa keligii buu nool yahay dhowr iyo 70 jir saal qarqaray way ag fadhiisteen albaabkii markuu ka furay ina jamaaca nahay masaajidkan ka soo booqanay waa ku soo ziyaaranay ma ziyaaraha ziyaarada waana qanay u kaadiyo buuri qolkiibu ku noqday lacag buu soo qaaday ziyaaradii wuxuu mooday qoladii tariiqadaha ee suufiyadu barigo reeraha waa ziyaaradii shaqabale keena orange imku iska dhamaataan malinba ana xaqiiqa Djibouti imku iska dhamaatay xaqiina mooyaan imka ziyarada waxa isku badishay ilaahay dartii qofka loo ziyaaranaya oo waxa badishay ilaahay dartii baan ku soo booqano ku soo ziyaaranay waxa biyana kuma sidno waxa biyana kuma kaama doonayne khayrka jamaacada ka yar dhageysan wada dhageysanay markaasuu yaab wuxuu wardad lacag diida markay lacag ma qaadano wali inta noolahay waa qof lacag diida way ku weey maxaa tihiin ma anako adeer lacag ma qaadane laakiin waqtiga dadka ka qaadana waqtiga 20 milyan ma nasiin kartaa soo fariista lacag diida maana ba arkay buu la yaab bay ku noqotay mug khamrigan halkan ay taala jamaacadna halkan iska fariisteen indhaha ka tabsadeen xayraad anako jamaacad waxaan martiya magaalada Hiblaayan ka imanay dadka muslimiintan ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaataysan baan ogaanaynay dadka waaweyna waan soo buuqanaynay dhalinyaradana masaajidkan ugu yeedhaynay halkii hadalka markay uu furfurmay wax lacagna ma qaadataan ma qaadano oo lacagta ayaa inaga bixiya bil maali wa nafs bil maali naftaydi maalkayga ku soo baxay ilaahay bay markaa kala hadleen cadamadiisi aakhiradii noloshii dambe qabrigii qiyaamihii u fikray markaa wuxuu hadalka adigu leedahay waligii ma maqal buuri waligii wax hadalka ila soo gala ma maqal buuri maxaad iga rabtaan adari sheeg lacag waad igu diideen wax kala sheegtay waxa ka rabnaa anagu laba qof aan nahay amiirkii iyo jamaacadii odayaashii miskiidkay joogaan inaad jamaacad u tagto waad soo salaantid bas intaas ka rabnaa ma intaas waa raaci darkii uu soo xidhay dhaladii khamriga halkii uu ka yimid quradii la socdo shaadkii jamaacada u soo raacay wuxuu salaad ma aqaano hal waxba male iska weysayso weysa ma aqaano kana ku ag fariisana sidoo sameeyo salaad ma aqaano kana ku ag tukane sidoo isagu u sujuudo soo rukuuc halka intii uu sameeyay ay linear iyo muusir iyo shaahir bay markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamayba dadkii xaafadu way daawanayaan odayga hebel baa maanta tabliiq miskiidka soo galiyeen war tabliiq ma soo galin ilaahay baa soo galiyay yaa soo gashay la yahdi allah bika rajulan wahida khayrun laka min humrin na'am ali nabigu markuu hadalka kulaha dagaal buu diray dagaal khaybar buu nabigu u diray inuu soo baabiyo yahuud laakiin nabigu ka daba hadlo wuxuu ali ogow miya la dagaalama buu keenay lasleed ay ka noqonayaan markaa buu nabigu ali dhageysa buu keenay mid iyaga kamidoo sababtaada ilaahay ku soo hadeeyo ayaa geeligiisa casas kaga khayr badan maqsuudka qitaalku waa maxay hidaaya looga dan lahaa hadday dadku iyagoona lala dagaalamin ay diintii ka dhageysanayaan oo diintii ka qaadanayaan dagaal meesha ma imanayo ogow dacwa muqaddam ala kulli shay dacwada ka horeysa wax walba jamaacadu waxay raadeen warana kuma soo galine ilaahay baa soo galiyay daaya salaada maghrib uu la tukaday bayaankii buu la dhageystay cishaayigii buu la tukaday cishaayigii intee soo kaxay bay masjidkii keenaan haddana salaadii fajr isagoo lugihiisa ku socdo masjidka soo galay toddoba maalmood isagoo salaadii laazimay dambigii ku jirana ka dhaxbaxay tiisi baa timid oo ilaahay waa ka manna qaatay wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakun baynahu wa bayna an-nar illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali al-jannati
فيدخلها وفي حديث النبي يقول انت تاكين لك markay naarta uga hadho ayaa ilaahay jalla wa ala qadarkii hore ugu qorna ayaa Allah hormarina dadna acmaasha jannada loo weecin toddoba maalmood uu cibaadaystay sida baa la rajin ilaahay jannada ku galiyo laana khaatimad bay ilaahay hagaaji حسن الخاتمه waa shay qaaliya annaka jamaa bari annaka khaarijina wadanada gaalada shisheeyaha ayaa la noo sheegay nin muslimo oo Soomaaliya laakiin meeshaan joogno wuxuu jiray 40 kilometer waa booqanay nin odayo daadiisa ku qiyaasan dhowr iyo 60 jir markaas jamaacada halkee ka timid xagga ay dalkii baan ka imanay maxaa u timaadeen dadka muslimiinta inaan soo ziyaaranay bas ajiib وخرجك يا نقى بحيا بالمال والنفس وفيزها ودن كان لما هلا سيادكو هشين إلهي باب بحيا رزقك هدوي ما دالكن وادمن أما عزكو كالي ما دلكو كالي محاد دونا سانيمك يا جماعة دي مسكيت كاسي جوغان إنا نرى عليهم دونين لأنه مسكيت حد ما تقابل حد مالما كلنا صلاة دايدنا إلهي بأقبولي لكن مر هداد بري ما جوغتان واحدة ها ونيم بودي ذلك الصوماليا وركي سرباي صوماليا هي قال صوماليا وركي ولا غسينا صوماليا نمدا نصعنا وموقته صوما افكا صومالي وحيسينيا هي نمري شو نوي ميد مالنتي دمبه وان سو دhoweynay nasiib jamaacada waxa la socda oday markii istuhudeen dadka Soomaalidu markay istuhudaan mid qaraabadiisa isgarteen markaas war markii hebel adiga la oran jiray ha maxaad ka shaqeysaa imika wadankan shaqo ayaa anaka noo dhiibanayay guri shaqo ma jirtee laakiin jaamacad baan dhigtay oo dalkii markii la joogay nin jaamiciyaad ahayde aqoonta ku dhimanad biirsataa maxay tahay bal ii sheeg wuxuu xiriirka labada dawladood dariska ka dhaxayaan bartaa weey ilaaqa bayna duwal markaas uu ku yiri xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay salaadaydu waa galab marka xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay professorada jaamacadda inii dhiga xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma ka hadlaan iyagoo ma yaqaanaan markaas lagu waxba ma baran baa lagu yiri xadiiska maadan maqalu nabigu leeyahay a'maaru ummati ma bayna 60 wa 70 عمر الغالب كأمة يدبو النبي يقولي وتضباطني لحظة أنت أود حيسا أذكر واحد لا دوري لحظة جربانة هاي أنت سين لندن تابو كيدي صلاة يدين واحد لا قلب حريرك أذيله نقد حيانا وضعيف كون وحكود جنا وحاتر حريرك ما بيقانان سدي كلها تهيبو كيدي أو عقلك أجي رشد جاي هذا الكثير والبصير يا جماعة وتري لكن منكي حبيك عشاء بركوتو كذا قري يسيبو تجي صلاة دي فجر إسقوا عربتي وتو جماعة دوي مدي وعود هذا الكاد يقول ترى هذا محلك سيحن كروايين هذا الكاد حلا يقول ترى هذا وأكيد سكر وين داعية مركون نقول ضد وناكسن الراعو ومد خير ورجينا يو ومد وناقيا كفي كريو هذا القيس إلهي وحوق لنا يا تأثير سامين بو هذا الكاغو يا لنا يا هذا سوء إصلاحها يا ومدنا إصلاحك كسوق قيب هذا نساء قيل هذا عن قيل إنه كبد بعد إنه دين تكوّد الشقين ودنيود إن شاء الله